Asxaabta ku soo dhawaada video kale oo xiiso leh. Videogan waxaan ku baran doonaa sida loo tolo dirac Fly Fashion ah. Halkaad naga daawanaysaan waa Ko Official, soo jeediyaan waa Yariso Super Tailor bogasho wacan. Haddana videogii ayaan guda gali doonaa asxaabta. Halkana Fly diracan ka dhigi rabnay qaybkan ayuu yaalaa. Marka Fly ka dhigayso waxaad u baahan yahay inaad kaysato markaada hore inaad diyaarsato boordooyin laba xarig ah oo qaybta hoose ugu dhigi doono iyo waxaas isagana qaybta dhexda ayaa lagu dhigi doonaa. waxaa kaloo loo baahan yahay lastiig isagan balaarka qaybta hoose gudaha ayuu kasoo galaya. haddana waxaa kaloo u baahan tahay caaradaas inaad labada garbood ka saarto. caarada ayadana soo diyaarsanaysaa markaad diraca fashionka Fly aad sameynayso. kan waa xarigii boordaha ahaa isagana qoorta laga saarayay. intaas markaad kaysato kadib waa kana diracaadii waxaad u jaranaysaa qoortii sidii diracada caadiga aan u sameyn jirnay qaabkaas noocaas ah. waad isku jebinaysaa laba mar. marka qaabkii dirac caadiga aan u jaran jirnay qoortiisa camal ayaa isagana u jaraynaa. waxay u kala duwan yihiin malahan qoorta way ka sameyn yihiin. halkaas qoortii waan jaranay halkaas qaab noocaas ayay noqotay oo ah hadii lakala furo ayadana saas ayay noqotay qoorteeda. videogan wuxuu ku saabsan yahay sida loo tolo dirac fashion Fly ah. dirac Fly oo fashion ah. halkaas haddana boordi ayaan saaraynaa qoorta. asxaabta waxaan u saaraynaa waa qaabkii aan u saari jirnay diracyada fashionka ama diracyada qoorta boordaha aan ka saari jirnay sida caadiga ahayd. waxay u kala duwan yihiin malahan markii loo fiiriyo xagga qoorta. boordi ayaa ku laabeynaa sida caadiga ayaan ugu laabeynaa oo diracyada fashion hore aan ugu laabi jirnay. boordi waan ku dhameynay kadibna xagga dibadda ayaan u soo rogaynaa. xagga dibadda ayaan usoo rogaynaa. meesha aan ka bilaabnay ayaa haddana ka bilaabanaa oo labada xarig boordaha iskaga imaanay laba af ee boordaha iskaga imaanayay. haddii aan meel dhex ka bilaabno waxaa ka imaan doona qalad. marka asxaabta boordiga qoorta waan ka saarnay halkaas noocaas ayuu noqday qoortii. halkaas qoorta noocaas ayay noqday odeed. haddana waxaa kaloo soo qaadanayna u baahanaha waxaa waaye caaradii garbahan ka saarlaan. caarada waa kala jaranaysaa laba garab ayaa kula qaybinaysaa. garabka ilaa garab kale ayadana ayaa kula qaybsanaysaa caaradaada. meesha dhexdaysa bartamaha ayaa ka calaamaysanaysaa diraca. caarada ayadana sidoo kale waa calaamaysanaysaa. marka labada meel ee dhexda calaamaysan ayaad isku soo aadinaysaa. waad isku soo laabanaysaa afarta gees ayaa ka wareejin tolmo ugu wareejinaysaa caarada. meelkaas aad ugu baxayso iyo meelkaas aad bilaabaysana waa inaad sameysaa reefista ku celiso harqaanka sababtoo ah ma yeelo doono inuu furfurmo. halkaas noocaas ayaa u saarna caarada halkaas garbihii qoortii waa taasaa. hadda waxaan dhiman ayadana garab kale waa inaan ayadana caaradii saarnaa. kala dhexbartanka ayaa ka calaamaynaynaa caarada diracan isagana dhexbartanka ayaa ka calaamaynaynaa. labada dhexbartan ayaa isku soo aadinaynaa. labada dhexdooda ayaan isku soo aadinaynaa kadibna afarta gees ayaan caarada tolmo ugu wareejinaynaa. meel kasta oo aan ugu baxayno iyo markaas aan ka bilaabeynana waa inaan reefis aan ku sameynaa aan ku celcelinaa harqaanka sababtoo ah meesha kasta laga bilaabo meel kasta bilowga iyo dhamaadka waxay leedahay furfurasho inay ka bilaabato. marka haddii aad ku celiso ma yeelo doono furfurasho boos oo ka bilowdo. halkaas laba garbood caaradii noocaas ayaan u saarnay. hadda wax noo dhiman oo keliya waxaa waaye inaan qaybta hore aan ka calaamayno meesha laasiiga dhexda oo kusoo aadi lahaa aan cabirano. cabirka laasiiga hore waxaa ka dhiganaya ilaa iyo 7 inji. ilaa iyo 7 inji ayaan ka cabiranaa. qaybtan gudaha ayaa laasiiga ka saari doonaa. intana laasiiga cabirkiisa geeskan laasiiga cabirkiisa ilaalaas camal ayaa isku jiidanaa. laba gees ayaa ku jiidanaa laasiiga isagana marka horeysa dhexda ayaa tolmo ka saaraynaa. tolmadan waxaa waaye jecel camal ama ii haye
sababtoo aan geeskan ka bilaabno tolmada afar geeskan kusoo wareejino waxay yaalada in dhaqaaq sameeyo ee tolmada gees u badato. Marka waxaa loo baahan yahay in dhaqaaq marka tolmada ka saarno kadibna laba gees tolmada dirita aan ka saarnaa afka hore. Tindhaxda iska boos celis haddii aan tindhaxda aan ka tagno oo geesaha wax macluum keenayso laakiinse waxay ku qurux badan tahay in mid dhex saarato sababtoo dhinacan markaa badanayo tolmada noocaas ayaan ku saaray laastigii waan gelin dhexda laastigii. haddii dhexda markaan gelin waxaa loo baahan yahay inaan samaysano ilaa xariga borda cirifyada oo laastig ayaan ka saarnaa isagana xagga dhabarka dambe ayaa loo xirnayaa qofkii doono. laakiinse waxaa muhiim ah in qurux badan tahay marka aad sameynayso diraca noocan oo kale ah inaad u sameyso laba cirib qofka isaga joos iska uu xirnaa dooran iska daynaya. marka labada caarad labada cirif laastig ayaan ka saarnaa labada xarig ayaan kala saarnaa. geeskan isagana ka saarnaa jab kale oo xariga bordaha ah. kaas ayaan u saarnay laastigii noocaas labada xarigna waa kaas isagana. haddii waxaan rabin waxaa waaye wixii isagana in halka dhexda aan ka saarno waxaa laga saarayaa halka dibadda ee banaanka marada ee muuqanayso ee ku aadan laastiga dhex bartankiisa ayaa la saaraa waxa isagana. laastiga gudaha haddaan kasoo gelin waxaan ka saarnaa qaybta sare ee muuqanayso dhex bartanka ayaan u gaadinaynaa laastiga. halkaas noocaas ayaa noqotay waxaan rabin oo keliya waxaa waaye inaan geesaha aan ka xirno sida diraca caadiga camal ayaan u xirnaa laakiinse space ayaa banaanka loogu baxay 3 inchi korna wuu ka tolmaa. kii hore diracyada caadiga waxay ka tolmi jireen gudaha kan kor ayaa ka tolmaa 3 inchi ayaa banaanka ugu baxaysa mare ayaa kasoo tagaysaa. waxa diracyada kale ugu duwan yahay falaaga waxa waaye 3 inchi ee banaanka loo baxay halka garabka waxaad ka yeelanaysaa ilaa 5 inchi 4 inchi bar ilaa 5 inchi ayaa garabka dhiganaysaa. garab kale isagana sidoo kale waa kaas falaaga lagu sheegay 3 inchi ka taada ee furanta banaanka loogu baxay. halkaas ayaan kusoo gogolnay asxaabta fiidiyogan oo fiidiyowgiisa xig waxaan ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.